أريا حادي تري ما بكون دورك النبوك حاد في رسالة ما دورك هالسبيس daawadayaal kusoo dhawaada saxafi filimis oo alaab aad ka dhaataan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. Barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa aktarada caanka ah ee Aishwarya Rai. Aishwarya Rai waxay ka mid tahay xidigaha ka howlgala shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya waxaana lagu yaqaanaa afgaabni, edeb iyo anshax. Waana marwada u dhaxda aktarka caanka ah ee Sheikh Bakshan, sodogna waxa uu Amitabh Bachchan. Haddaba aktaradan waxaa la sheegay oo ay shaacisay kadib markii filinkeeda la magac baxay Faneekhan tiyaatarada dalkaasi Hindiya la saaray. Filinkaasi inuu ahaa filan dhexdhexaad ah oo box office-ka welina aanu guulo waaweyn ka keenin. Haddaba su-aalihii la weydiinayay filinkaasi ay aktaradan qaybta ka ahayd filinkaasi waxa ay ku daadihinaysay inay tahay macallimad music oo ay rabto gabar musiga rabta in ay mustaqbalka gaarto tababar siinaysa si ay gabadhaasi guul u gaarto. qaabjiliinka iyo performance-geeda dhammaanba aad ayaa loo ammaanay Aishwarya Rai. Kadib ayaa waxaa la weydiiyey su-aalo dhowra. Su-aalahaasina waxaa ka mid ahaa ma laga yaabaa mustaqbalka inay mar kale dib ula midowdo aktarka caanka ah ee Shah Rukh Khan. Aktaradan ayaa waxay ku jawaabtay sidaad wada taqaanaan aktarada caanka sida Salmaan iyo Shah Rukh Khan. Tusaale ahaan usoo qaatay bay tiri Shah Rukh Khan oo kale ayaga ayaa propose gareeya oo gudbiya bay tiri cidda filinka la daadihinaysa. Hadduu Shah Rukh Khan raalli ka yahayna mar hore ayuu gudbin lahaa. Hadba qoftii ay rabaan ayay keenaan, tii loogu soo darana waa ay iska bedelaan iyaga oo markaasi veto power ku leh. Ma jirta bay tiri attriisho waxay rabta iska samayn karta. Ma jirta bay tiri qof codsi inta iska gudbisaa markaasi loo aqbalayo haddii qofka markaasi filinka daadihinaya uusan saaxiibtinimo u haynin amaba wanaag uusan ka dhaxaynin. Maalmahan dambe waxaa soo baxday bay tiri aktarka attriisho kasta looma keeno. Waxa uu weydiiyaa directorka amaba producerka filinka yay tahay gabadha ila daadihinaysa. Haddii la isku fahmo waa uu saxiixaa oo waa ogolaadaa. Mararka qaarna waxaa dhacda bay tiri in heshiiska dhex mara cidda filinka iskale iyo aktarka ay isku og yihiin. Xitaa haddii markaa dagaal uu jiro waa la isu keenaa oo waxaa lagu tilmaamaa in ay marar badan horey usoo dhacday. Sida la wada ogsoon yahay waa Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif ayay ka dhex dhacday. Inkastoo filinkaasi uu xoogaa khalkhal galay ha yeeshee ugu dambeyn waxaa lagu tiriyaa filinkaasi in sababaha ugu weyn ee hoos u dhaca u keenay uu ahaa labadaasi dagaalka ka dhexeeyay waa Katrina iyo Ranbir Kapoor oo waqtigaasi xiriirkoodii jacayl uu soo dhamaaday. Haddaba waxa ay sheegtay filinkeeda ugu horreeya Aishwarya Rai oo hadalka sii wadata in ay la jili doonto iyada saygeeda waa Sheikh Bakshan. Waxayna tiri filinkaasi waxaa directorka ah Sarvesh Mewara waxaana filinka magaciisa la yidhahdaa bay tiri Gulaab Jumana. kaas markii aan ka baxo kadib ayaa suurtagal bay tiri in aan SRK amaba Salmaan amaba aktarkii kale aad ila jeclaysataan inaan filan la dhigo inaan la daadihin doono. Haddaba aktaradan caanka ah ee Aishwarya Rai iyo su-aashii la weydiiyey qaabkay uga jawaabtay waxaad moodaa in aktarada magaca kule shirkadda Bollywoodka ay awood u leeyihiin filinka ay daadihinayaan in ay qofkay rabaanna ku daraan qofkii ay rabaanna ay ka saaraan. Haddaba daawadayaal intaas ayaan barnaamijkii kusoo afmeerayay. Halka aad ka daawanaysaana waa saxafi filimis oo alaaba diyaar idinla dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee arrimaha Bollywoodka ha ka bixin. Haddaba haddii aadan ka mid ahayn bacda ku xiran saxafi barnaamijkan like sar kadibna subscribe saxafi filimis taaba gambalelka si barnaamijyada ka baxa saxafi ay joogto kugu noqdaan. Fikirkaad qabtidna waxaad ugula wadaagi kartaa qaybta commentiska ee saxafi filimis. Inagoo isku duuban oo baada saxafina waxaynu idinkaga tegaynaa dhammaanteen sidaa iyo nabadgelyo.